sanad walba bilowgiisa iyo dhammaadkiisaba waxaa qiimeyn lagu sameeyaa sida ay u kala awood badan yihiin baasaboorada ama waraqaha lagu socdaalo dunida. Waxaa jira wadamo marka ay dadkoodu socdaalayaan dunida inteeda kale tixgelin weyn laga siiyo, halka dalalka qaarna ay adag tahay in dadkoodu ay helaan dalkugalka ama fiisaha ay dal kale ugu dhoofi lahaayeen. Haddaba warbixinteennan maanta oo ah qiimeyn ay samaysay hay-adda The Henley Passport Index ayaa sanadkan bilaabmay 2020 ay ku bayaamiyeen dalalka safka hore kaga jira iyo kuwa ugu hooseeyaba marka la eego dhanka baasaboorada dalalka adduunka. dalka Japan ayaa haatan leh baasaboorka ugu qaalisan dunida, kaasi oo dadka dalkaasi xilliyada ay safarka yihiin ay booqan karaan 191 dal, kuwaasi oo ku geli kara fiisa la'aan amaba ka qaadanaya fiisaha madaarka. waxaana Japan baasaboorkeedu ka dhigan yahay in 195 dal ee dunidu ka kooban tahay 4 dal mooye inta kaleba ay dadkiisu booqan karaan. dalka ku jira kaalinta labaad ee baasaboorkiisu sida Japan dalal badan lagu tagi karaa waa dalka yar Singapore ee dhaca koonfur bari Asia, waxaana baasaboorka dalkaasi lagu tagi karaa 190 dal. dalalka Jarmalka iyo koonfur Korea ayaa ku wada jira kaalinta saddexaad, waxaana baasaboorada dalalkaasi lagu tagi karaa 189 dal. kaalinta afraad waxaa ku wada jira dalalka Finland iyo Spain, halka kaalinta shanaadna ay ku wada jiraan Luxembourg iyo Denmark. kaalinta lixaad waxaa iyaguna ku wada jira Sweden iyo Faransiiska. kaalinta toddobaad waxaa ku wada jira dalalka Switzerland, Portugal, Holland, Ireland iyo Austria. kaalinta sideedaad waxaa ku jira dalalka Mareykanka, Ingiriiska, Norway, Greek iyo Belgium, halka kaalinta sagaalaadna ay ku wada jiraan New Zealand, Malta, Czech, Canada iyo Australia. kaalinta tobnaadna waxaa ku wada jira dalalka Slovakia, Lithuania iyo Hungary. dalalka Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa waxaa muuqata in baasaboorka dalalkoodu uu hoos u sii socdo marka la eego heerkii ay joogeen 2015. hoos u dhaca baasaboorka Ingiriiska ayaa lala xiriirinayaa ka bixitaanka midowga Yurub iyo mustaqbalka dalkaasi oo aan weli saldhigan, halka Mareykankana qiimeyn la sameeyay lagu ogaaday in tan iyo intii uu madaxweyne Trump talada dalkaasi qabtay ay badatay nacaybka in badan oo dunida ka mid ahi u qaaday hogaamiyaha dalkaasi oo lagu eedeeyo inuu yahay shakhsi fudud oo aan ka talin nabadda iyo isdhexgalka dunida. dhanka dalalka Carabta, wadanka sida weyn baasaboorkoodu kor u kaca u sameeyay waa Imaaraadka Carabta, kaasi oo ka soo ruqaansaday booska 74aad haatanna yimi kaalinta 18aad, waxaana muwaadiniinta dalkaasi ay u socdaali karaan 170 dal oo caalamka ah. intaasi waxay ahayd wadamada uu baasaboorkoodu qiimaha weyn leeyahay, bal imkiya haatanna aynu eegno baasaboorada ugu daciifsan amaba aan tixgelinta weyn la siinin dunida. waxaynu ka bilaabi doonaa xagga sare, taasi oo ka dhigan in dalka ugu dambeeya uu yahay ka uu baasaboorkiisu ugu liito. waqooyiga Korea iyo Suudaan waxaa baasaboorradooda lagu tagi karaa 39 dal oo keliya. dalalka Nepal iyo Falastiin waxaa lagu tagi karaa 38 dal. Liibiya waxaa lagu tagi karaa 37 dal. Yemen waxay u socdaali karaan dadkeedu 33 dal. Soomaaliya iyo dalka Pakistan ayaa baasaboorradooda heerka ay xilligan joogaan loogu socdaali karaa 22 dal. Suuriya ayaa dadkeedu u socdaali karaan 29 dal, halka Ciraaqna ay u socdaali karaan 28 dal. dalka Afghanistan ayaa leh baasaboorka ugu hooseeya dunida xilligan, waxaana baasaboorka dalkaasi lagu tagi karaa 10 dal oo caalamka oo kaliya. waxaana badiba dalkan Afghanistan iyo dalalka kale ee Soomaaliya ay ka mid tahay halakeeyay dagaalo sokeeye, taasi oo keentay in qiimaha baasaboorradoodu hoos u dhaco. intaasi ayaynu ku soo gabagabeynaynaa warbixintan kooban aynu ku eegaynay sida ay baasaboorrada caalamku ay u kala qiimo badan yihiin dunida amaba ay u kala sarreeyaan. waxaa idin la socodsiinayay anigoo ah Maxamed Cawad Maxamed. inta barnaamijkan oo kale aan ku kulmi doono, dhammaantiin waxaan kaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.